sheekh maxamed facebook waxaad ku soo qortay ilaa 5 qodob oo hanaankii siyaasadda dawladnimada dhaqaalaha shaqaalaha wax walba leh oo ku ifinayso dawladda 3 sano jirtay waxyaabihii looga baahnaa ma qabatay dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo si aan madaxweyne loo soo dhaweyn baa ummadda Soomaaliyeed u soo dhaweysay adigu wada ogtahay meel walba laga soo baxay caruur dhalinyaro diyar iyo weyn dad Soomaali oo dhan marka horta hankaas in leeg baa laga sugayaa qofkii wax qabad yar laga sugaayana wax qabad yar baa lagu la xisaabtamayaa marka qof adigu jawaan bariisa laga sugaayo oo koomba keenay ma sax ma noqonayso nabi عليه السلام wuxuu leeyahay waxaan idin farayaa ismaqal iyo kala dambayn waa dawladnimo waa nidaam waa hanaan maamul weeye sidaad u garab istaagtay marka dawladda mooshin baa la keenaa la yiraahdo sida u hadlaysay maxaa shalay ku muuqday oo maanta isbedelay hadaan nahay culimada wadaadada waxa weeye mar walba waxaan nahay nabadgeliyada iyo kala dambeynta iyo xasiloonida iyo quud halka wuxuu mariyo qofku inuu helo iyo minimum noloshiisa inta ugu yar meel uu seexdo oo gabaad uga noqdo qabowga iyo kuleelka iyo wuxuu cuno dawladda haday labada ku fashilanto wax kasta oo hadal keentaa waa fashilan tahay min culumad tahay siyaasaduna u firfircoona ku dhex jira culimada laftirkoodu waa wada siyaasiyiin marka shacabka Soomaaliyeed laga hadlayo waa dad islaam ah culimadu waa dawlad madax banaan booskii ambiyada ay joogaan marka nin sheekh ah maxamed idriis oo kale inta soo istaago sheekh hebel soo istaago waxa dadku ay dhageystaan waa dareenka qofka waa haysan kartaan la idinku ma hayo waxan waa xaq iyo waxan waa baadil dawladdu waa ku milantihiin hoteelada hadda aad soo sheegtay waa degantihiin mushaaraadka la bixiyo oo iska wax u qabsada aad ku shaqeysaan culimada laftirkooda waa afhayeeno dawladda maanta qalad haduu ka dhaco waxa arkaysaa culimo hadlaysa xil ay dawladda ka hayaan iyo goor la magacaabay lama yaqaan mushaari qaataan hoteelay ku nool yihiin waa degan yihiin ama reerahoodii loo biilaa kuwa qabiilay ku dhex jiraan oo waxa laga yaabaa maanta madaxweynaha jooga waa reerkaaga bari mid ka imaada ama kiisha la joogay qabiil ayagana wax u taageersan yihiin sidee dadka laftirkooda horta wax ugu sheegi kartaan dad wadanka waxba u qabanaynin oo meelo iska jiijiifa oo balad baraf ku socdo baan 10 kun siinayna